أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ka salaamayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel kastoo joogaan dal iyo dibad. waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka qaaliga ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalahayga iyo saxaabteyda iyo Soomaali weyn dhan waxaan ogeysiinayaa qisadii aan dhahayay aniga igu dhacday waa idiin soo sheegayaa, waa ka cudur daaranayaa. haddii walaalahayga waa ii diideen, wiilashiina ii diideen. maasha allah, qof haddii walaalkeeda isku taagi kartana ma ihi. waan jeclahay walaalahayga oo walaalahayga wiilashiina waan jeclahay, saas darteed aan iskaga daayay. laakiin qiso kaleeto oon qof taabanaynin baa idiin soo sheegi doona insha allah, oo aniga yacni xaggayga ka socota. markaas kadib hadda qisa idin la wadaagaya. qisadaasoo dad bay ku dhacday, ma aha muhiim ma aha meelay yacni ay tahay. waxaa la dhahay dad reer baadiye meel degan oo hal cunug haysta ayaa marti u imaaday. martidii markay u imaaday, nin oo ari wata u imaaday, oo nin ganacsado oo ari baadiyaha ka gadgadanayo oo magaalada usii gudbinayo, oo nin oo hantiilo ah xoogaa fiican. anaga nin hanti badan asaa sheegaa lahay, waxaa la dhahay nin hantiilo ah oo dhahay. marka islaantii iyo ninkeedii iyo cunuga baadiye degnaa, oo dadka reer baadiyaha 3 qof ay ka koobnaayeen. marka ninkii reer baadiye waa lasoo dhaweeyey, ninkii yacni magaalada ka imaado ariga gadanayo waa lasoo dhaweeyey. markii lasoo dhaweeyey cuntaa la siiyey, meel baa gogol loo dhigay, cuntaa la siiyey, shaah baa loo soo kariyey. ninkii reerka lahaa iyo isaga iswareysteen. wuxuu dhahay ari baan baadiyaha ka gataa, baa sii dhoofiyaa dibadaha iyo meelahaas u sii dhoofiyaa. marka nin iska hantiila ahay oo dhahay haddii ragga baa la sheekaysanaya, soo ma aha, rag iyo dumar baa la sheekaysanaya. markaasaa wuxuu dhahay arrintii marka ninkii xagga gurigiis kala aaday, reerkan islaantii u tagay. ninka nin hantiilo waayo oo nin ganacsado waayo, nin waxaa waaye maasha allah, waxaaskiis ugu sheekayay. islaantii waa soo boodaa lahay ilaa ninkan aan dilna, xoolahan aan ka qaadano. naagdi badanaa naagaha barkooda sheegaa, naag dhan isku mid ma ahane. waxay tiri xoolahan ka qaadana. ninkii bay ku dhiirigelisay, yacni aad bay u soo socotay. ninkii arrintii wuu ogolaaday. marka meelshii ninkii wiilkii yaraa iyo isagaa la seexiyaa lahay. السلام عليكم ورحمة الله.